gabadhii iyo ninkeedii taajirka ahaa waxay lahaayeen ilmo qurux badan balse si dhab ah isma aqoon. Xitaa guurkooda kadib weligood hal qol ma wada seexan. Maalin uu ninku ilmaha u sheegay inuu berri mar kale u imaan doono, ilmihii gacantiisa ayuu qabsaday isagoo diiday inuu baxo. Gabadhii ayaa si xishood leh u soo jeedisay inuu habeenkaas la seexdo ilmaha. Waxay ka baqaysay inuu diido, balse markii uu arkay ilmihii oo indhihiisu ilmo ka buuxaan, wuu aqbalay. Markaas ayay u ekaadeen qoys dhab ah. Ninku wuxuu sheegay inuu baxayo marka ilmuhu seexdo, laakiin ilmihii markiiba wuu fariistay isagoo aan rabin aabihii inuu tago. Gabadhii ayaa ka codsatay inuusan hadda ka hadlin bixitaanka. Labadooduba waxay isku dayeen inay ilmaha hurdiyaan, ilmihiina wuxuu qabtay gacmahooda isagoo farxad la dhoola cadaynaya. Muuqaalkaas diiran wuxuu qalbiga gabadha geliyey farxad weyn. Hal sano ka hor gabadhu waxay ku jirtay xaalad murugo leh. Ninkeedii hore ayaa khiyaamay guurkooda, kadibna dhammaan dhibaatooyinka wuxuu dusha uga saaray iyada isagoo ku eedeeyay inaysan carruur dhalin karin. Markii ay maxkamadda ku kala tageen, waxay gashay murugo iyo niyad jab weyn. Waxay rumaysnayd in dhibaatadu iyada ka timid, balse run ahaantii wax cillad ah kuma jirin. Ninkeedii hore ayaa been abuurtay si uu uga tago ugana hor istaago inay wax hanti ah ka hesho furiinka. Iyadoo qalbi jabsan ayay degtay hudheel yar oo baadiye ah si ay nafteeda u dejiso. Maalin iyadoo raadinaysa albaabka hudheelka, waxay aragtay ilmo yar oo ku dhumanaya cawska agtiisa. Warqad agtaal ayaa sheegaysay in qofka loogu talagalay inuu daryeelo ilmahan ay iyadu tahay. Maadaama ay aaminsanayd inaysan weligeed ilmo dhalin karin, waxay go'aansatay inay korsato wiilkaas. Waxay si degdeg ah u dhamaystirtay dhammaan waraaqihii korsashada. Hal sano kadib ilmihii wuxuu ku koray caafimaad iyo farxad. Gabadhu waxay u malaynaysay inay nolosheeda inteeda kale si nabad ah ula noolaan doonto, balse wax walba way isbedeleen. Maalin axad ah oo caadi ah, saf dheer oo baabuur qaali ah ayaa soo galay tuulada fog. Muddo yar kadib nin maalqabeen ah ayaa soo galay gurigeeda yar. Markii ay banaanka u soo baxday, aad ayay ula yaabtay. Ninkii wuxuu sheegay inuu u yimid raadinta ilmihiisa. Gabadhii waxay u malaysay inuu yahay aabaha dhabta ah ee ilmaha. Kaaliyihii ninka ayaa markiiba sheegay in wiilku aad ugu eg yahay madaxdiisa. Ilmihiina wuxuu u orday ninkii isagoo si adag u habsiiyey. Qalbiga gabadha waxaa galay murugo daran. Ninkii wuxuu u soo bandhigay lacag badan si uu uga mahadceliyo daryeelkii ay siisay ilmaha. Hase yeeshee gabadhu lacagtan kama lahayn. Waxa kaliya ee ay rabtay waxay ahayd inay mar kale isku duubto ilmaha ay soo korisay. Ninku wuxuu markii hore u qaatay inay tahay qof lacag jecel, balse gabadhu waxay ka hormarisay mustaqbalka iyo waxbarashada ilmaha dareenkeeda gaarka ah. Markii ninku ku yiri ilmaha inuu la socdo, ilmihii si xoog leh ayuu ooyay. Ninkii markaas ayuu fahmay in ilmuhu aanu ka maarmi karin gabadha. Ugu dambeyntii wuxuu go'aansaday inuu labadoodaba la kaxeeyo si ilmuhu uga ag dhawaan karo qofkii soo koriyey. Laakiin su'aasha weyn ayaa ah, sidee ayay laba qof oo aan isjeclayn ugu dambeyntii isu guursadeen? Maxaase dhacay intii ay wada socdeen ee ka dhigtay qoys dhab ah?